waxaan gelinaa markaa subtopigeena kale oo ah subdivisions of anatomy. Subdivisions of anatomy sida caadiga ah waxaan u qaybinaa 3 qaybood ayaan anagu u qaybinayna. Waa laga yaabaa inaad qaybo kala aragto, laakiin 3dan ayaa aad accurate ah oo ay kuwa kala hoos imaadaan. haddii meel kale aad ku aragtid aad uma kala duwana. Of course midka koowaad waxa weeye waxa la dhaho macroscopic or gross anatomy. inta badan maxaa adeegsanaa gross anatomy, wax la arki karo. gross waa maxay? wax weyn wey. definitionkiisu waxa weeye study of anatomical features visible to unaided eye. waa inaad daraasayso anatomigii ama xibnihii jirka ee bini'aadamka ee la arki karo isha oo waxba yani markaa caawinaad helin. isha caadiga ah ayaa arki karaysa. waa fahantay? okay, macnaheedu waxay tahay no need to use microscope. looma baahna in microscope la isticmaalo si loo arko. kan labaad waxa weeye microscopic or microanatomy. kan waxa weeye study of structures with aid of microscope. waxaad u baahan tahay microscope si aad markaa u daraasayso ama aad u barato microanatomy. we need microscope to study. okay, developmental anatomy waa midka saddexaad. developmental anatomy waxa weeye study of structural changes from conception to birth. yani waxaa baranaysaa koriimada qofku uu sameynayo xilliga laga soo bilaabo ugxaanta iyo spermka ay isku tagaan oo fertilization uu dhaco. yani you know ina zygote ay ka bilaabanayso oo maxaa la dhahaa from zygote ilaa ay cunug markaa oo ka dhalanayo ilaa iyo markii uu dhasho to adult markuu noqonayo waxa la dhahayo epiphyseal closure oo ka dhacayo oo markaa koriimada qofka cunuga ay ka joogsanayso waxa la 18 ilaa 20 sano meelahaas koriimada ay joogsanayso. marka ilaa intaas anatomical changes ka dhacayo ayaa waxa la developmental anatomy. si gooni ayaa loo daraasiyaa. hal waxaan u geynaa 3dan marka 3dan qaybood hal mid walba meeqa ka sii farcanto. kan koowaad macroscopic anatomy-ga 4tan ayaa ka farcamayso. kan koowaad waxa la systemic anatomy. waxa weeye in anatomy-ga loo daraasiyo by system. tusaale ahaan kale endocrine system, nervous system, okay, alimentary system or digestive system, saas yani in loo daraasiyo. kan labaadna waxa weeye regional anatomy. waxa la dhahayo waa in anatomy-ga loo daraasiyo by region sida abdominal, thoracic iyo sidoo kale pelvic iyo hidden neck in loo daraasiyo. waxa la dhahaa regional anatomy. kan saddexaadna waxa weeye waxa la surface anatomy. surface anatomy waxa weeye study of external features of the body without dissection. waa inaad barato waxa korka bini'aadamka korkiisa ka muuqdo adigoo on dissection u sameyn, on dilaacan gudaha gelin. ya ayaa waxaan korka ka baranay. tusaale ahaan kale aad waxa muhiim ah markii examination-ka la joogo ayay aad muhiim u tahay surface anatomy-ga. markii aad surgery sameynayso aad muhiim u tahay. markii qof wax ku soo dhacaan trauma kale ay ku soo dhacdo xibnaha gudaha waxaan maxaa la saameeyeen waa inaad kor visualization ka sameyn karayso. markii tusaale ahaan kale qofka oo blunt trauma ay ku dhacdo kale even penetrating markii ay ku dhacdo abdominka surgery-ka markaa mididu ay gashay ama birtu ay gashay waa inaad korka ka fahmi karto ciladu meesha ka jirto. waxa dhan ku sahlay surface anatomy waxa la. so surface anatomy-gaaga waa meesha oo ugu muhiimsan marka la qaadanayo ama systemic ha noqdo anatomy-ga qaadanayso ama regional ha noqdo ku dhex jira. kan afraad waxa waa specialized branches of anatomy. qaybo oo specialized waxaan ka wadnaa waa qaybo si gooniya loo daraasiyo. si gooniya loo daraasiyaa marka qaatiirtu u baahan baa daraasiyo. laakiin sida caadiga in medical school kuma qaadanayno. kan maxaa kamid ah specialized-ka ilaa iyo 5 qaybood ilaa 5 taana soo hoos imaado. radiographic anatomy waxa way inaad study of structure of anatomy using imaging technique. waa in la barto anatomy-ga marka quseeyo imaging technique in lagu barto way. kan labaad waxa waa surgical anatomy. waa in la daraasiyo anatomy-ga maxaa la study of anatomical landmarks important during surgical procedure. waxyaabaha muhiimka u ah surgical procedures. tusaale ahaan kale meeshan maxaa ku jiro waxa la dhaho على tension lines waxa weeye jirku tension lines qaybo leeyahay oo surgery-ga parallel loogu sameeyo. waxyaabaha markaa muhiimka u ah sidaas oo kale surgery-ga ayaa waxa la surgical anatomy. kan saddexaad waxa la pathological anatomy. pathological anatomy waxa weeye study of anatomical changes caused by disease process. anatomical changes waxa isbedelada anatomically ee cudur sababo. tusaale ahaan kale qofka waxa ku dhici karo kale patient-gan Alzheimer's disease or Parkinson's disease or some kind of autoimmune disease ku dhici karo. marka tissues-ka si isku bedelayaan. tissues-ka sida isku bedelayaan ama ay weynaanayaan ama ay baaba'ayaan degeneration ku dhacayo ayaa waxa la barashadiisa waxa la pathological anatomy. okay,
comparative anatomy waa midka afraad. Comparative anatomy waxa weeye study of similarities and differences in anatomy of different species. xayawaanada ama specieska kala duwan waxyaabaha anatomically ay ka siman yihiin iyo waxay ku kala duwan yihiin in la daraaseeyo waxa la comparative anatomy ayaa la. Tusaale ahaan oo kale bini aadanka iyo xayawaanada kale like kaba soo qaad petska dooliga something like that. waa ina xayawaanada kale iyo bini aadamka waxyaabaha ay ka simaysan yihiin ka midaysan yihiin ama ay ku kala duwan yihiin in la daraaseeyo anatomically waxa la comparative anatomy. Even xayawaan iyo xayawaan kale waa la daraasin karaa difference anatomical u dhaxeeyo iyo waxa ay ka midaysan yihiin. Kan shanaad waxa la molecular biology. Molecular biology waxa study of anatomical structures of subcellular level. waxa la molecular biology. Okay, microscopic ayaan u galaynaa division-kii labaad laba ayaa hoos imaado waxa la histology iyo cytology. Histology waxa weeye study of tissues, waa in la barto tissueska ama maxaa lahaa unugyada in la barto weeye. sida caadi afartan ayaa loo qaybiyaa marka laga hadlayo tissueska. afartan tissue ayuu jirkeenu leeyahay: epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue, nerve tissue. Cytology waxa weeye study of cells, waa in la barto cellska ama maxaa lahaa unugyada jirka ayaa lagu daraasayaa. There are over 200 types of cells and 7.2 trillion cells. jirka bini'aadamku wuxuu leeyahay in ka badan 200 oo nooc oo cells iyo 37 trillion oo cells ayuu leeyahay. So cells waxaan ilma aragtida weeye, waa unugyada aadka u yaryar wax la arki kara maaha. marka 37.2 trillion oo cells ayuu jirkaagu leeyahay. sidoo kale cytology-ga ama cell biology course hataa qaadanaysid dabcan waxa ku arki doontaa wax la yiraahdo eukaryotic iyo prokaryotic. So waxyaabo difference badan ayaa u dhaxeeya labadan nooc cells-ka ayaa labadan loo kala qaadaa. Cells-ka marka difference-gooda waxa kamid ah salahan kale eukaryotic-ga wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo nucleus, halka prokaryotic uusan lahayn. Eukaryotic-ga waxa weeye multicellular, halka prokaryotic uu yahay marka unicellular. Eukaryotic wuxuu leeyahay membrane envelope oo nucleus-ka kan kale ma lahan. Difference badan ayuu leeyahay, laakiin muhiimadeedu ma ahan inaan gudaha u sii galo. waxa weeye prokaryotic iyo eukaryotic in cells ku leeyihiin. waxa kale aad u muhiim ah cells according to multiplication ama cell division-ka jirkaagu saddex nooc oo cells ayuu leeyahay. kan koowaad waxa la lahaa labile cells, kan labaad stable cells, iyo kan saddexaad waa permanent cells. maxay kala yihiin? sidaas soo sheegnaba muhiimadda markaan aan ka hadlayno waxay tahay waa cell multiplication. So labile cells waa cell si joogto ah multiplication u sameeyo jirkaaga oo loo baahan yahay inay maalin kasta ama waqti badan hadii loo baahdo ama cycle socdo waay, multiplication socdo waay. labile cells sida epidermiskaaga oo kale, dermiska, skinka oo kale, epidermiska oo kale aan soo qaadan karna. yani waa continuous multiplication ay wadaan. Stable cells waa cells multiplication waa sameynayaan laakiin waa markii stimulus lagu sameeyo. tusaalaha ugu fiican wuxuu liverka oo kale. waxaa maqashay qof inaa liverkaaga hadii uu liverka qofka ka jishay cirrhosis uga dhaco inaa half uga bixin karis. marka half marka uga bixiso means kaaga ayaa multiplication ku sameynaya. laakiin adigoo caadi hadii multiplication sameyn lahaa de adigu xilligan ka weynaan lahaa. marka markii stimulus lagu sameeyo unbuu multiplication sameeyaa. kan saddexaadna waxa la yiraahdo permanent cells. permanent cells waxa cells that never multiply, yani marna multiplication ma sameynayaan. maxaa lahaa isheeg division ma sameynayaan, waxa dhan ma sameynayaan. marka cells waxa ugu muhiimsan oo soo qaadan kartaa nerve cells, laakiin hadii si daraasay cells-ka nerve cells oo kale multiplication ma sameynayaan. okay, qaybta saddexaad divisions-keeni waxa ah developmental anatomy. Developmental anatomy definition waa soo aragnay. asaga waxa qaybtan waxa hoos imaanayso embryology. embryology waxa study of developmental events that occur during prenatal stage. prenatal cunuga ilaa uu ka dhalanayo waxyaabaha development dhacaya waxa la embryology ayaa lagu bartaa. marka waxa jirto embryology kan ka hadlayna saddex stage oo muhiim ah. stage koowaad waxa la germinal stage, waa cunugu markii uu sameysmo conception ilaa 3 week. waxa ku xiga embryonic stage, waa ilaa 3 week ilaa 9 week cunugu marka uu gaaro. sidoo kale waxa ugu dambeeya fetal stage oo after 9 week wixii ka dambeeya ilaa cunugu uu ka dhasho fetal stage la. saddexaas stage ayuu leeyahay. lecture-keena maanta intaanu ka egyahay. waxaan rajeynaa parts kala introduction iyo qaybaha ka dambeeyana la socon doontaan. aad ma santiin wixii fariina noo soo reeba oo maxaa la dhiirigelin iyo waxyaabaha aad jeceshiin inaan markaas saxno.